madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa qaaday tallaabooyin gumaad diblomaasiyadeed ku noqonaya Soomaaliya kuwaasi oo guulo waaweyn oo aanay hore u gaadhin u horseeday Jamhuuriyadda Soomaaliland kulamada madaxweynaha waddanka Israa'iil iyo wiilka uu dhalay madaxweynaha waddanka Mareykanka Eric Trump ayaa madaxweyne Cirro iyo wafdiga uu hogaaminayaa ay ku qaateen magaalada Davos ee waddanka Switzerland haddaba kulamada tani maxay uga dhigan yihiin Soomaaliland maxay yihiin dadka la qariyay sawiradooda ee saameynta leh kuwaasi oo uu la kulmay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro goorma ayuu la kulmi doonaa madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo la filayo inay magaalada Davos ee waddanka Switzerland ku kala saxiixdaan heshiiska Abraham warbixinteennan ayaynu ku qodobaynaa casharro diblomaasiyadeed oo aan hore loogu dhigin Soomaaliya ayuu u dhigayaa madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana uu qaaday tallaabooyin si cad u muujinaya inay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku kala adkaadeen diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku soo oodantay wadadii diblomaasiyadeed Xasan Sheekh Maxamuud ka arrimiya magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cirro casuumad rasmi ah ka helay shirka dhaqaalaha adduunka oo ka dhacayay waddanka Switzerland ayaa habeennimadii xalay ahaydna waxa uu yeeshay kulamo kuwaasi oo Soomaaliland u xaaray waddo diblomaasiyadeed oo ugu horseedaysa dalal kale oo badan inay aqoonsadaan casho sharaf heerkeedu sareeyo oo uu kula kulmay madaxweynaha waddanka Israa'iil wiilka saameynta badan ee Eric Trump oo uu dhalay madaxweynaha waddanka Mareykanka ganacsato maalgashadayaal ah iyo shakhsiyaad kale oo saameyn ku leh madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay magaalada Davos ee waddanka Switzerland oo ka dhacay shirka dhaqaalaha dunida waxaana cadaatay oo soo xoogaysatay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro inuu kulan la qaadanayo madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump oo halkaasi ku sugan kagana soo qayb galay shirka dhaqaalaha dunida iyadoo ay soo baxayeen saacadihii ugu dambeeyay dhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland uu halkaasi ku saxiixi doono heshiiska Abraham Accord oo ah kii ay Soomaaliland aqoonsiga ku heshay go'aanka geesinimada lehna sababay inay dawladda Israa'iil qaadato madaxweyne Trump oo su'aalo laga weydiiyay habeennimadii xalay ahayd heshiiskaasi iyo wadamada ku soo biiraya ayaana cadeeyay in wadamo badan oo aan bariga dhexe ka tirsanayn doorka nabadeed iyo isku soo dhawaanshaha qalalaasaha bariga dhexe muddada dheer ka gabadhacleynayna wax badan ka qaadan kara ay ku soo biiri doonaan kuwaasi oo Muslim ah iyadoo tani ay muujinayso inuu si cad u sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka Soomaaliland inay ka mid tahay wadamada ku biiraya heshiiska Abraham Accord madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo habeennimadii xalay ahayd casho sharaftaasi khudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa uu daboolka ka rogay kabadfalladii ay Soomaaliya ka geysatay geeyiga Soomaaliland sidii ay Soomaaliland xorriyadeeda ku heshay 1960kii inay ahayd dawladdii ugu horreysay ee geeyiga Soomaalida xorriyad ku naaloota sidii ay Soomaaliya ugu biirtay iyo sidii ay xorriyadeeda ula soo noqotay 1991kii waxa uu ka mahad celiyay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro go'aankii geesinimada lahaa ee ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil uu ku aqoonsaday Jamhuuriyadda Soomaaliland ugana soo jawaabay baaqii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana uu madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro carabka ku adkeeyay in ka badan 200,000 oo qof inay Soomaaliya xasuuqday oo midnimadii ay Soomaaliland ku doonaysay shanta Soomaaliyeed ay sababtay xilligaasina uu ka jixinjaxay gabadfalladaasi ka dhacay geeyiga Soomaaliland danjiraha u fadhiya waddanka Israa'iil qaramada midoobay tallaabadaasi diirnaxa lahaydna madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa ka mahad celiyay shakhsiyaadka madaxweynaha Mareykanka agtiisa ugu saameynta badan oo uu ka mid yahay wiilka uu dhalay ee lagu magacaabo Eric Trump ayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu casho sharaftaasi kula kulmay iyadoo ay xubnahani ka shaqaynayeen sidii ay labada madaxweyne u kulmi lahaayeen ilo wareedyo diblomaasiyadeed oo madax bannaan ayaa sheegaya inay saacadaha fooda inagu soo hayay sarki doonaan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo dhigiisa waddanka Mareykanka Donald Trump shakhsiyaadka kale ee saameynta ku leh madaxweynaha waddanka Mareykanka oo madaxweyne Cirro uu la kulmay lana qariyay sawiradooda ayaa waxa ka mid ah Jared Kushner oo la taliye u soo noqday madaxweynaha waddanka Mareykanka ahna ganacsade saameyn ku leh go'aamada uu gaadhayo madaxweynaha waddanka Mareykanka Jared ayaa ah ganacsade sare iyo la taliye madaxweynaha waddanka Mareykanka intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2021 haatanna waxa uu ka mid yahay dadka ugu dhow ee saameynta ku leh go'aamada uu qaadanayo madaxweynaha waddanka Mareykanka xilligaasina waxa uu ahaa la taliye sare oo ka shaqeeya arrimaha bariga dhexe iyo diblomaasiyadda waa maalgashade si weyn looga yaqaano waddanka Mareykanka gudihiisa waxaana uu ka mid yahay shakhsiyaadka suurtagelinaya kulanka dhex maraya
madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. kulamada tan ayaa Somaliland uga dhigan guul taariikhi ah oo ay ka gaadhay diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda, kaasi oo ay ku tiigsanayso madaxweynihii adduunka, iyadoo ay Soomaaliyana uga dhigan tahay gumaad diblomaasiyadeed iyo tallaabo guuldarro weyn u horseeday oo uu madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro qaaday. waxaana uu mar kale madaxweynaha Somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ku dhuftay dharbaaxad diblomaasiyadeed oo aan ka soo kabasho lahayn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.